الرحمن الرحيم مقعي وعبد الساق حسن هاجر waxaan kamid ahay ardayda dhigata jaamacadda Banaadir waliba departmentka culuumta caafimaadka waliba waxaan ka sii bartaa kulliyadda nursingka magacayga Axmed Abdiraxmaan Musul baa leedahay waxaan kamid ahay ardayda dhigata jaamacadda Banaadir khaas ahaan ardaydii ay waxyeelo ugu badan soo gaartay health science ama culuumta caafimaadka ee jaamacadda ka baranaa horta sida caadiga loo ogyahay waxa waa jaamacadda waxay ku taallaa meel aad fog marka ardaduna waxay kireystaan baabuur caasiyaal oo jaamacadda geeya anigu waxaan kamid ardayda jaamacadda subaxaas soo aaday marka waan isku ceynay ardada meesha waxaan 4 gaari baan ahayn waan isku ceynay marka hal gaari baa gudbay oo ku gudbay meeshii jaamka ahayd dan gaarigii banaanku tagay anaguna soo wacay wuxuuna dhahay niyahow jaamkii ma ka soo baxdeen أنا هانتي ولي صوّعي متكمل أرضي نتوي صوّعي وحنا صاحبه وجامك وانكشرة ولي لكن ولي واي مركب وحوي ده هاي صاحبه وضع كبحثان برنامج نجوز كان نجتين مركب واحد عادي جد كي عريب وها أو وقت مل أنت سجاري سكوت معدي وحنا صوّغن لي ماشي وقت ما حيا لو رجحان جد كل وحره رجح مركب على سمنا هاي أيام واحد مقالني بص u badan iyo qarax hoogiis isla markiiba yarkii daruurka gaariga waday qaraxa markuu saa u dhacay yani wixii daruurkiiba hal mar uu isku naxay baawarkii maraadii baa ka jabeen meesha qaraxa dhacay gaariga yani meesha qaraxa uu ka dhacay anaga wax farqi ma dhaxan isku meesha x kan tulbaan u taagan tani baa wax ka dhimanaayeen oo isla markiiba meesha wixii ku dhacan daruurkii aad u naxsan gaarigii waa yani dhinaca ceelashan soo aadnay dhinaca tradition meesha jaamacadda yani ku taalaan soo aadnay markaan jaamacaddu yani aan imaanay baabuurtaas meesha taagana ismaana dhahayd meesha taagnaayeen markaan dhinac kale ka soo wareegnay waxaan la ahayd isla markiiba baxeen bayna la ahayd baabuurta asxaabteeda markiiba qarax ilaa uu dhacay wala iskoordooniya asxaabteedii baan waxaan teleefanadooda garaacnay lama heli karo waa dasiihay waan dareennay in meeshaas musiibo aad u weyn ka dhacday isla markiiba waan soo noqonay ardadeennii dhammeyd kulligiin waan soo noqonay bartii ay musiibadu ku dhacday ex-control afgooye ayaan nimaanay runtii waxaan aragnay markaan soo noqonay baabuur leeyahay baabuurkaas waa ardayda gaariga jaamacadda Banaadir ama arday baa saaran gaari leeyahay oo yani runtii soo noqday aad malaysan karin haba yaraatee aan meesha ku aragnay markaasaan aad u sii caawimaanay wallaahi lagama sheekayn karo runtii xaaladaas waqtigaas yani xaalad shucuurtina sida ahayd isla markiiba meyd badan ayaa la soo safay meyd fara badan ayaa la safay then waxaan dhahnay meydkan kulley madiina lagu daba keenayay sal madiina dhan sidii waan anagii asxaabteedii halkii baabuurka laga soo qabsanay madiinaan imaanay daqiiqada ka bacdi isla markiiba waxaana loo keenay asxaabteeni iskulaaska ahayn asxaabteeni waxaan isla soo baranaynay asxaabteeni aan muddo 3 sano ku dhawaad 2 sano bar aan kala soo wada bilownay yani markii yani wax yar nooga harsanaayeen kulley toodii baa xagaas dhimeed baa asxaabteeni meesha ku arnay ayuu wada meeyda kulley oo in badan waa arkay midkooda ama yani raadinayo oo fiirinayo arday anaga baxday in badan agteena qaali ku ah ardaydaas oo isugu jirtay maxaa la yiraahdaa kulliyadda qaybaheeda kala duwan marka laga hadlayo kulliyadda 4 qaybood ay ka sii kooban tahay 4 qaybood ay kulliyadda ka sii kooban tahay dhammaantood waa ay saameysay oo dad kamid ah ay ku baxeen qaraxaasi qofkii ugu horeeyay ee aan arko meesha isku dhintay ee ka tirsanaa kulliyadda waxay ahayd gabar magaceedna lagu magacaabo Xafsa oo aan ku gartay boogii ay ku dhiganaysay xiisada ay ku dhiganaysay oo xabadka u saarnaa waa gabadhii ugu horeysay halkaas ay taa ku arkay iyadoo meed ah in badan waxa la yiraahdaa waa dhacdo xanuun badan inta dhimatayna waa 13 qofood waaye 3 ay wiil yihiin halka 10 kaleetana ay gabar yihiin intoodaba waxay ahaayeen in fasalka marka la dhahayo ma ay sheeg kulahaa ay sheeg qiimo aad u weyn isla markaasna ahaa dadka ugu firfircoonaa ee looga yaqiinay fasalka xitaa guud ahaan jaamacadda maalintuu qarax dhacay habeenkeed waxaan seexday 9 saac habeenimo 9 saac waxaan ku gaaray qaar kamid ah ee sheeg dadkii ku geeriyoon lahaa meeshaas ay ku dhintay anagoo wada hadleen waxaan ahaa arday ayaga ka horeeyay waxay iga wareysanayeen qaabka presentation-kooda uu noqon doono qaabka imtixaanaadka loo ay u gali doonaan macnaha imtixaanku waa isbuuc hadirtan aan ku jirno oo maanta qarax u dhacay sabdigeedu imtixaanku bilaaban lahaa